ninkaas adigu warbixinno badan iyo arrimo badan buu naga dheehday oo nala wadaagay. ciidamada militariga SSC ee ku sugan sohdimaha kumeel gaarka sida sohdintan salinta qaybtooda flaaga ama sahanku waxay gacanta ku soo dhigeen goor dhaweyd wiilkan dhalinyarada ah oo isagu ka yimi dhanka og isla markaasna u soo tallaabay halkani soo dhawow bal marka hore waxaad naga warataa ciidamadu markay ku soo qabanayeen sidee kula dhaqmay. ciidamadu sayga qabteen anigoo banaanka maraya qabtaan anigoo laamida maraya arba lama nin igu hor yimaadeen sax marka labada nin baa igu hor yimaadeen oo moobiladii bay qaadeen oo way saxaba yiraahdeen way sii daayeen waan soo dhaafo niman kale oo meel kale fadhiyaan midoo nimankaas marka adigu siyaabo kala duwan ciidamada ku soo qabtaan booliska lagu keenay ama booliska degmada lagu keenay maamulka degmada iyo haddana waxa lagu sii wadaa taliska guud baa lagu sii wadaa bal waxaad faahfaahin naga siisaa marka hore xagee ka timid. أنا وحنا كمين إثيوبيا كمين. إثيوبيا كتير. ها. وحاتمي أوجر ماتي. أوجر شل عصر كيفاني بدول بيت أنا سديت الساعة هي بيني من إيمن. مركا أوجر ما كصباح هذا. أوجر نوحنا كصباح لا ملها سقال كي ملها سان كصباح. صح مركا مين لوش يجي مضادني إن خطر بدن تهاي وحدك كل حرية هاي وأن السكوت بكرين. نيو خطرتها بدني وليك سكل لما أنا سعنين سوا يصدق على الجيران سوا يرمقلي. صح. markii hadeer toosan ka dhugtay lagu weydiiyay xaybta halka ka soo jeedid wiil yar oo dhalinyaro oo Soomaali ayaa tahay laakiinse way isdhaafeen qabiilada mar waxa sheegatay ugaadeen cid kale oo aad sheegtay in lagu garaaco waxay sheegatay hawiye cid kale waxay sheegtay gari qabiilkaaga saxda ah qabiilkayga runta saxda nimankan kale ay sheegtay صح barashaman ay kulka hore kana abay ma imbisis yaqaanan saaxiib ay ahaayeen kuwi ninkayga aan hargeysaan kala hadlay saaxiib ay ahaayeen oo barigaas bari wala yar saaxiib ay ahaayeen oo sidaa ma isku soo dhaweysto ninka isoo nin hawiyaha anu soo waxaan nin Cabdullaahi ha fata ugaadine ha watahay balsi aan faafaynta wiilkan dhalinyarada imka loo sii wado taliska guud waxaan faahfaahin naga siin doonaa balisna gudoomiyaha ama gudoomiyaha degmada Guumeys anigu gudoomiyaha degmada Guumeys Abdulqaadir Ciise Maxamuud ninkan dhalinyarada oo ciidamada militariga SSC ee jiida hore deegaanka Guumeyseed ay ku soo qabteen oo ay noo keeneen baan halkan ku haynaa ninkan waan wareysanay wararsigii adigu ma dhamaystirna wali taliska guud ee ciidamada SSC ayaan geenaynaa ninkaas adigu warbixinno badan iyo arrimo badan buu naga dheehday oo nala wadaagay wixii warbixinana haddii lahaydmo waad ogaa doontaan isagoo ninka dhalinyarada galbeed buu ka yimi haddeerna wuxuu ku sugan yahay taliska guud ee ciidamada SSC ee Guumeysed waxaan u sheegayaa dadweynaha inaan cidna wax yeelayn baaris ku socoto ama nin kiis leeyahay noqonaya ama nin lagu waayay oo ninka dhalinyarada dhowr qabiil ayuu sheegtay mar hubiyu sheegtay mar waadan buu sheegtay mar faalmigiisu hubiyu noo sheegay oo waxaan nin adeer u yahay oo Hargeysa joogu noo garaacay wuxuu yiri waxaan ahay fuqshini هويان هاي هوية أو نين عيران هاي ولي فوشين ما هاي نين عيران هاي ولي هويها حمرة مركا نكاسدو وركيسة هي حالة ديسة كعنتن كوهينا إن شاء الله أنا ونجح لسان تلسك كود عندما SSC